dibadbaxan oo lagu taageerayay go'aankii baarlamaanka federaalk Soomaaliya uu ka qaatay mooshinkii ku aadanaa codka kalsooni kala noqoshada xukuumadda Ra'iisul Wasaare Saacid ayaa maanta ka dhacday taaladii hore ee sayidka degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho. dadkii ka soo qayb galay banaanbaxaasi ayaa ka kala yimid qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo dibadbaxaasi ay ka soo qayb galeen abwaano kuwa oo muujinaya sida u taageersan yihiin in la sameeyo isbedel la xiriira siyaasadda horumarka dalka iyo danta shacabka. banaanbaxyaasha ayaa sitay sawirrada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka Federaalk Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo boorar kale ay ku qornaayeen halkudhigyo ay ka turjumaya sida bulshada Soomaaliyeed u garab taagan yihiin dowladda Federaalk Soomaaliya. qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay soo baxaasi oo la hadlay saxaafadda ayaa cabiraya dareenkooda ku aadan sida u arkaan go'aankii uu qaatay baarlamaanka Federaalk Soomaaliya. waxaan ka qayb galnay banaanbax lagu taageerayo isbedelka cusub. waxaan aad ugu faraxsannahay Soomaalidu waxay u kala qaadan jirtay qabiil, qoray, handadaad. hadday si xora isbedelka ay raalli uga noqdaan Soomaalidu kulligeed way guuleysanaysaa. waa mahadsantihiin. isbedelka oo xabad iyo dhiig iyo midna aynu ku dhicin ummadan raali isaga tahay ilaahayna raali waa nooga noqonaa annagana raali aan isaga nahay. isbedel oo waxaan aragnay oon ku jirin aniga maraayadda haddaanan iska arkin banaanbaxaa ma soconaay. waa dhammaatay. shacabka waa u xur mar walbaba inay bannaan baxaan. bulshadoo midaysan oo isu soo baxeen oo baaq nabada sheegeen horta wuu bogayaa. maantay waxaan iskugu nimiday haddaanahay dadka gobolka Banaadir sayidka hortiisa taaladii ahayday qadiimiga. waxaad mooddaa isu imaadka meeshaas in ay ahayday hididiilo badan aniga ay gelisay iyo farxad aanan waayadanba la kulmin. sidaa darteed meesha waxaan kala kulannay dad niyad wanaagsan oo ciyaarihii dhaqanka iyo hiddaha ku taageerayo go'aammada baarlamaanka iyo isbeddelka dalka. waxaanna leennahay halkiinaa ka sii wada. labadii bishani Diseembar ayay ahayd markii mudanayaasha baarlamaanka Federaalk Soomaaliya ay kalsoonida kala noqdeen xukuumadda uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid iyadoo soo baxan uu ahaa mid lagu taageerayo go'aankaasi ay gaareen mudanayaasha baarlamaanka Federaalk Soomaaliya. Xasan Yuusuf Cali, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.